TV-ga qaranka Soomaaliya oo idinkaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee magaalada tan Muqdisho. warkana waxa idin la socodsiinaysa anigoo ah Aamina Ladan Axmed Cali. qodobada wararkayagana waxa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka ah ee Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay safiirka Suudaan ee Soomaaliya iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada wadan. gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dhawaan uu furmayo kulanka golaha oo ajandaha koobaad uu yahay go'aanka xukuumadda ay dhawaan soo saartay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska cabashooyinka bulshada ee la xiriira cadaaladda iyo talo bixinta sharciga. qodobada wararkayga dibaddana waxaa kamid ah dagaal u dhaxeeya xoogagga dimuqraadiyiinta dalka Syria oo ay weheliyaan kuwa Kurdiyiinta iyo Maleeshiyada Daacish ayaa ka dhacay deegaanka Darzuur ee dalka Syria. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobadii ugu waaweynaa warkayaga. haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan. waana axad 10 bisha September sanadka 2017. gudoomiyaha aqalka baarlamaanka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta kulan la qaatay safiirka Suudaan ee Soomaaliya. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xiriirka labada wadan iyo sidii Suudaan ay uga qayb qaadan lahayd dib u dhiska dalka Soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Ibraahim Guudle Isxaaq. kulankan maanta gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu la qaatay safiirka dawladda Suudaan ee Soomaaliya Maxamed Yuusir Cabdilmanaan ayaa waxay kaga hadleen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka labada wadan. ugu horeyn safiirka Suudaan ee Soomaaliya Maxamed Yuusir Cabdilmanaan ayaa gudoomiyaha golaha shacabka u keenay warqadda casuumaadda uu kaga waday xafiiska baarlamaanka ee dalkaasi Suudaan, taasoo gudoomiyaha golaha shacabka looga codsanayo inuu booqasho ku tago dalkaasi Suudaan si loo xoojiyo wada shaqaynta iyo iskaashiga labada baarlamaan. sidoo kale safiirka iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalalka Carabta iyo siyaasadda guud ee dalalka Carabta, waxaana gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uga mahadceliyay safiirka Suudaan ee Soomaaliya sida wanaagsan oo mar walba uga shaqeeyo horumarinta iyo xoojinta xiriirka labada dal. dawladda Suudaan ayaa waxay ka mid tahay dawladaha Soomaaliya ka taageera dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinacyada waxbarashada iyo tababarida ciidamada. Ibraahim Guudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in fadhiga ugu horeeya ee mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dhawaan la qaban doono. Mr. Xaashi oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in fadhiga ugu horeeya ee mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka looga doodi doono go'aankii 6 bishan September golaha wasiirada ay soo saareen. doodista go'aankii xukuumaddu ay gaartay ee ku saabsanaa u gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax u gudbintii Itoobiya ee xukuumaddu go'aankii ay ka soo saartay weeye kaas oo aan rabno inaan aqalka geyno oo aqalku ka doodo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska cabashooyinka dadweynaha iyo talo bixinta sharciga. xafiiskan oo ay soo diyaarisay ama diyaarintiisa ay lahayd wasaaradda cadaaladda ee dalka ayaa waxa uu dadweynaha Soomaaliyeed si free ah ugu fududeyn doona talo bixinta sharciga. wariyahayaga Nasra Bashiir Cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa. si wax looga qabto cabashooyinka bulshada Soomaaliyeed ee la xiriirta baahida ay u qabaan inay helaan garsoor hufan ayaa ah ujeedada loo hirgeliyay xafiisyadan oo ay ka shaqeyn doonaan sharci yaqaan kala duwan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xariga ka jaray labadan xafiis oo ka shaqeyn doona qabashada cabashada dadweynaha iyo talasiinta dhinaca sharciga ee arrimaha garsoorka.
wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hirgelisay xafiisyadan muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed mana jiri doonto lacag laga qaadayo shacabka loogu adeegayo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa tilmaamay in xafiisyadan ay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha horumarinta cadaaladda waddanka ee dowladda Soomaaliya. wasaaraddu inay xafiiska cabashooyinka dadweynaha furtay waa qayb ka mid ah in cadaaladda wax laga qabto in qof walba oo dareemaya cadaalad xumo uu helo xafiis aan lacag ku kacayn oo inta la yimaado ay su'aalaha ay qabaan ama dhibka loo geystay ay u soo caban karaan cabashadaasuna ay u imaanayso dad sharciga wax ka yaqaana ugu dambeyntina wasiirka cadaaladda ay u imaanayso wasiirkuna uu keeni karo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa tallaabo weyn oo arrimaha cadaaladda laga qaaday waa tallaabooyin ka mid ah ballanqaadka madaxweynuhu uu sameeyay howlihii kalena aan ku mashquulsanahay haddii ilaahay yidhaahdo xafiiska la talinta sharciga sidaasuna isaguna waxay tahay qof walba oo Soomaaliyeed oo u baahan in sharci ama qaanuun lagala taliyo ha ahaato qof ka xiran ama dhib kale haysta ama guri laga haysto ama maxkamad wax xukuntay oo u baahan in lagala taliyo qaanuunkaas iyadoo aan wax dhaqaale la weydiinayn inay wasaaradda cadaaladda iyaduna ku kaalmayso wasaaradana uga mahad celinayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo shaqaalahana waxaan uga mahad celinayaa dadaalka dheer ay iska saareen. Mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre u soo gudbiyay 18 sharci oo wasaaraddu ay diyaarisay kadib markii ay wasaaradaha dawladda u soo gudbiyeen waxayna ka mid noqon doonaan sharciyada xukuumadda Soomaaliya horgeyn doonto baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaa kaloo wasiirka cadaaladda iyo wasaaradda uga mahad celinayaa in annagoo ka duulayna ballanqaadkii madaxweynuhu ku horjeediyay baarlamaanka inaan soo dhamaystirnay 18 ay soo dhamaystireen 18 sharci 18 kaas sharcina ugu dambeyn bisha soo socota loo gudbin doono baarlamaanka haddii ilaahay yiraahdo. xafiiskan oo xafiis ay dadka shacabka u soo gudbisan doonaan cabashooyinkooda ku aadan dhinaca cadaaladda ayaa fursad siinaya dad badan oo Soomaaliyeed oo tabanaya cadaalad darro ha yeeshee xafiiskani waxa uu noqonayaa 27 sano kadib markii ugu horeysay oo la hirgeliyay waxaana qayb ka yahay qorshaha xukuumadda ee la xiriira horumarinta cadaaladuna ay tahay saldhigga aasaaska dawladnimada iyo sidoo kale horumarka bulshada. Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka iyo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay xarun lagu tababari doono ciidamada nabad sugidda ee maamul goboleedka Jubbaland taasoo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo. wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warkan Kismaayo ka soo diray. wafdigan uu hogaaminayay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo halkaas waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dawlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa koowaad Maxamuud Sayid Aadan. kadibna waxaa mas'uuliyiintaasi ay u dhaqaaqeen goob markaasi la doonayo in laga hirgeliyo xarun lagu tababari doono ciidamada nabad sugidda ee dawlad goboleedka Jubbaland waxaana halkaasi si wada jir u dhagax dhigay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya David Conker iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. kadibna waxaa bilowday kulamo gooni ah oo safiirka Ingiriiska iyo wafdigu hogaaminayay ay la qaadanayeen mas'uuliyiinta maamulka. kulanka koowaad ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya David Conker waxaana kadibna bilowday wada hadallo iyo kulamada ayaa intii ay socdeen waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimo kale. sidoo kale waxaa bilowday kulan ballaaran oo dhex marayay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya. kulanka markii uu soo gabagabay waxaa saxaafadda la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxaana uu sheegay sidaad arkayseen maanta waxay noo yimid wafti uu hogaaminayo safiirka dawladda Ingiriiska oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya. waxaa laga wada hadlay sida capacity building loogu sameyn lahaa
hay-adda sirdoonka xagga tababarada iyo xagga qalabkaba waxaa xigoo laga wada hadlay shir ay si khaas ah madaxweynaha ula galeen oo asigana ahaa bilateral meeting shir laba dhinac ah oo iskaashiga dowladda ingiriiska iyo dowladda soomaaliya khaasatan dowlad goboleedka jubbaland ku saabsanaa waxaa xigay shirka hadda soo gebagaboobay oo ayagana ay la yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo xafiiska wasiir dowlaha xafiiska madaxtooyada anigana aan shir guddoominayey dhammaan waxa laga wada hadlayay waxay ahayd laba qaybood qaybta horumarinta iyo qaybta ammaanka oo ay iskugu jireenba waftigii inoo yimid aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo. weli daawadayaal halkaad nagala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee magaalada tan Muqdisho waxa inoo soo socda warar iyo warbixino kale insha Allah Mawla sayeeshay haatan ku soo dhawaada aadaanka salaada cishe ee waqtiga Muqdisho. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين 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 قدر كاسي دعاء الحاد كلي أذان كصلاة العشاء حلقة مقدشو هالكات كلا سعتين وتلفزيون كقرن كصومالية حرنتي سدحية مقالة مقدشو مركنا أن دبوا أن بقانو قيبها كلا ورك يجا قسمها وزير كمالية أهنا وزير كحجين كمالية الدولة فدرال كصومالية مدني عبد الله الشيخ علي قلعو أيام تكقيب قلي kulan lagu sii ambaqaadayo mashaariicda dhinaca horumarka ee dib u dhiska dalka kaasoo maanta lagu qabtay magaalada tan Muqdisho kulanka oo sidoo kale ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada dalka ayaa waxa uu ku saabsanaa mid lagu sii ambaqaadayo mashaariicda dhinaca horumarka ee UN-ka iyo World Bank-ga ama Banka Adduunka
uu ka wado Soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Ismaaciil Mukhtaar Oranjo. kulankan oo ah kulankii saddexaad ee mashruuca fududeynta horumarinta iyo dib u dhiska waddanka Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa furitaankiisa ka soo qayb galay kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow xogayaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka kala socotay wasaaradda maaliyadda iyo maamul goboleedyada kala duwan ee ka dhisan waddanka Soomaaliya. jadwaha mashruucan Cali Xaaji Aadan oo ugu horeyntii kulanka ka hadlay ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii u soo qabsoomay inta uu socday mashruucan iyo qorshayaasha hadda hor yaala. mashruuca ay maalgelintiisa waxay ka imaanaysaa laba qaybood qayb aan muxuu ahay UN-ka iyo qayb World Bank. marka qaybta UN-ka waxay dhamaanaysaa oo mashruucu uu dhamaanayaa 30 muxuu ahay September ayuu ku ogyahay. marka waxaan u baahanahay in extension loo sameeyo maxaa yeelay mashaariicdii loogu talagalay wali socotaba marka in loo sameeyo ilaa muxuu ahaa June 2018 sidoo kale World Bank mashruuciisa uu dhamaanayaa 30 December asigana sidaas oo kale mashaariicdii socota qaaraha hadda pipeline-ka ku jiro marka ayadana waxaan rabnaa in loo kordhiyo ilaa up to muxuu ahaa June 30keeda sanadka 2018 intaas oo dhamaanna marka in ka doodno. kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow ayaa sharaxaya ahmiyadda mashruucan iyo faa'iidooyinka uu leeyahay isku xirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. mashruucan waxa ugu weyn waxay tahay waa public infrastructure buildings waa agtiino waddanka markuu ka dhacay dagaalkii sokeeye waxaa burburay waxyaabaha ugu badan waxay tahay waa infrastructure dawladda ay lahayd iyo dawladdu waxa ay ku shaqayn lahayd ayaa burburay ma in dib loo soo celiyo marka taasaa saldhigga ugu weyn ah. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana uu fursad u siinayo in ay shaqo abuur u noqoto mashruucan gobolada kala duwan ee laga fulinayo. waddanka waa dhalinyaro runtii dhalinyaro waa waddanka waxaa ka soo haray oo ay doono 20-25% ayaa waayeela wada inta kale waa dhalinyaro hadduu dhalinyaro yahayna waad garan kartaa marka wuxuu u baahan yahay shaqo u baahan yahay wuxuu u baahan wax in la baro wuxuu u baahan inuu capacity-giisa maamulka inuu wax magaciyo waa arrin culus oo loo baahan yahay dawladda federaalkana culays bay saaraysaa dawlad goboleedyadana inay saaraan halkaas. dawladda Soomaaliya ayaa wado mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo dib u dhiska kaabayaashii guud ee dhaqaalaha waddanka iyadoo kulankan uu qayb ka yahay kulamadaasi lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya oo burbur xad uu soo gaaray markii ay meesha ka baxday dawladda dhexe ee Soomaaliya. Ismaaciil Mukhtaar Umar, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. wafdiga ayaa halkaasi kula kulmay kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ahna wasiirka beeraha ee maamulkaasi. wariyahayaga Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa warkan Baydhabo Janaa inooga soo diray. wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo si diiran ugu soo dhaweeyay wasiiro xildhibaano taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Yarow abaanduulaha qaybta Ismaaciil Khaliif Shire ururada bulshada rayidka sida haweenka iyo dhalinyarada iyo shacab aad u tiro badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo isla markaasina wasiirka u muujinaya soo dhaweyn diiran. intaasi kadib wasiirka ayaa loo galbiyay aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo halkaasina waxaa kulan uu kula qaatay kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Xasan Fiqi waxaana kulanka sidoo kale qayb ka ahaa wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wasiirka ayaa intaasi kadib booqday xarunta qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halkaasina waxa uu kulan kula qaatay saraakiisha ugu sareysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa qaybta 6aad. taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Yarow ayaa wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya ugu mahadceliyay booqashada uu ku yimid taliska qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana uu ka rajeeyay in wasaaradda gaashaandhigga wax badan ay ka qabato taliska qaybta 6aad. intii aad aan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa wasiirkeena
runtii waa wasiirkii ugu horreeyey ee noo yimaada dowladda federaalka oo taliska qaybta yimaada waana taliskiisii uu isagu xukumay runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay wasiir soo dhowow magaaladaadii ku soo dhowow taliskaagii qaybta 6aad ku soo dhowow oo xoogga dalka Soomaaliyeed runtii farxad weyn ay noo tahay inaad maantana soo gaarto adiga iyo wafdiga aad hogaaminayso aad ayaan idin soo dhawaynaynaa waana mahadsantiin antaasi kadib wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa la hadlay warfidiyeenka waxaana uu faahfaahiyay ujeedada uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo ku faraxsanahay inaan maanta imaado qaybta 6aad hawlaha aan u nimidna insha Allah qaybta taliskeedii ay nooga bilaaban doonaan inteeda kalena sida gobolka Gedo ciidamada jooga iyo Bakoolbana insha Allah in la booqdo oo aan soo arko oo magaranaysa arrimihii quseeyay baahidooda iyo shaqadooda iyo intaba ka quseeyay ka wasaarad ahaan iyo ka dawlad ahaanba insha Allah ayaan hordhac u nahay tiimkaasna way tagi doonaan gobolka Bakool iyo gobolka Gedaba si ay u darsaan ama ula socdaan hawlaha ciidan ee inoo socda taasoo loogu talagalayna ee loo gol leeyahay in ciidankii tayadiisii iyo hawlihiisii dardargelinteedii laga shaqeeyo tiraajisha isaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo bixaysa qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaraxan oo uu fuliyay nin nafti hura ah ayaa waxaa lala beegsaday xarun maqaaxi ah oo ku taala bartamaha magaalada Beledweyne halkaas oo dad badan ay xilligaasi ku sugnaayeen wariyahayaga Cabdishakuur Cusmaan Cali ayaa faahfaahinta warkan Beledweyne nooga soo diray inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku dhaawacmatay halka 3 kale oo ku jiro naftiyahaligii isqarxiyay ay ku dhinteen kadib markii naftiyahaligasi uu iska soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo isku qarxiyay maqaayil loo qaxweeyay oo ku taala bartamaha magaalada Beledweyne goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamada ammaanka waxaana ay xireen goobta uu qaraxu ku dhacay si markaasi dhaawacyada loo gaarsiiyo goobaha caafimaadka ee ku yaala Beledweyne 15 qof ay ku dhaawacmay qaraxani ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Beledweyne iyo waliba isbitaal ay maamulaan ciidanka AMISOM oo ku yaala duleedka Beledweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim ayaa waxa uu kormeeray goobaha la geeyay dadka dhaawacyada waxaana uu soo indheeyay isbitaalka guud ee magaalada oo dhaawacyada uu badan la geeyay saakay magaalada Beledweyne waxa ka dhacay qarax oo nin ismiidaamis ah ninkaas oo mataqaanaa runtii meel biibito dadka ay fadhiistaan oo iska sheekaystaan biibitadii ay ku qarxay alxamdulillah say wax u rabeen ma noqon laakiin waxa ku waxyeeloobay dhaawac dadweynaha iyo laba nin oo dadweynaha kamid ah Allah u naxariista labadaasna way ku dhinteen walaalahaas 15 qofood way ku dhaawacantay waad arkayseen biibitadaas oo mataqaanaa meel oo mataqaanaa public oo dad mataqaanaa rayid ay joogaan ayay wax ku noqdeen alxamdulillah ilaahayna waa u boodeen mataqaanaa waxay la dabacsanaayeen maysa gaarin intaas ay magaalada Beledweyne ka dhacay daweerku waxa fulay hal nin oo shakhsi oo mataqaanaa soo miidaamay ajarta naftiisa oo mataqaanaa naftiisa halag ah ninkaasna mataqaanaa dhibaatadaas ayuu geystay saaki waad garan kartiin oo maleynaa waana arki kartiin xare ciidanna ma aha meesha waa biibito oo public ah meesha wax ku qornayn meesha xafiis dawladna ma ahan waa biibito biibitana cid kasta mataqaanaa wax ka rabta ku sameynayso waa public dadka soo fadhiisana oo kale kamid yihiin marka hadda ka bacdina waxa waaye sida dadaalka nabada milyan waa sii wadayna insha Allah taala qaraxyada noocan ah ee lagu dhibaataynayo shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ku caanbaxay maleeshiyada Ugus iyadoona dhaawacyadii maanta ay qayb ka hayeen ku dhawaad 3 wariye oo ka howlgala warbaahinada maxalliga ay ka howlgala gobolka Cabdishakuur Cusmaan Cali SNTV Beledweyne gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay wadada General Daawud ee isku xirta daljirka Dahsoon iyo Sodonka Mr Taabid oo ka hadlayay munaasabadii uu ku dhagax dhigay goobtaasi ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu u heelan yahay horumarinta iyo bilic soo celinta magaalada Muqdisho wariyahayaga Nuur Saciid Tahliil ayaa faahfaahinta warkan inoo haya sanado badan oo ay burbursaneed isla markaana isticmaalkeeda dhibaatooyin kala duwan lagu qabay wadada General Daawud oo isku xirta taalada daljirka Dahsoon ilaa wadada Sodonka ee magaalada Muqdisho ayaa ah wado muhiim u ah
isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee gobolka banaadir waxaana maanta dhagax dhigay waddadaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed si waddadaani dib u dhis loogu sameeyo dhagax dhiga kadib ayaa duqa magaalada muqdisho waxa uu kormeer socda ku maray waddada General Daawud isagoo kula dardaarmay shirkadda dhisaysa waddadaani inay dhisaan waddo tayo leh oo ay bulshada ku nacfiyaan gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka banaadir Seenab Yuusuf Weliye ayaa tilmaamtay in maamulka iyo bulshada reer Boondheere ay ku faraxsan yihiin in dib u dhis lagu sameeyo waddadaani aad baan maaragtay ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana guulaha gobolka banaadir yacni oo gaaray oo ayaamaha wadooyin badan la dhisay haddana waad u jeedaan mid la dhax dhigaa wadada General Daawud kuwa kala ku xigi doono insha Allah waa guulaha ee gobolku gaaray ayaan leenahay waana soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada degmada Boondheere iyo wadada General Daawud oo maanta maaragtay tiinka noo baxay ay kamid tahay in dhagax la dhigayo maanta duqi magaalada oo dhagax dhigayo lana dhisayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed waxa uu sheegay in maamulka gobolka uu xoojin doono dadaalada lagu horumarinaya bilicda wadooyinka iyo dib u dhiskooda wadadii labaad ee bishan gudaheeda waxay ahayd 6 bisha markaan dhagax dhigaynay wadadii ku taala degmada Xamar Rajab ee laanta General Kaahiye ee ka soo baxaysay airportka ee ku soo dhacaysay wadada General Kaahiye isla bishan gudaheeda oo hadda maanta bisha ay tahay 10 waxa ilaa maadiis markalna haddana dhagax dhigayna wadadii General Daawud oo wada taariikhiya oo istaraatiijina runtii oo taalada qiimaha badan ee daljirka Dahsoon hadda ka bilaabanaysa oo na ku dhamaan doonto insha Allah meesha ay gaaraysan ay tahay baarayaan ee wadada Sodonka aan ujeedadana waxay kamid tahay horumarka laga sameeyo dib u dhiska iyo wadooyinka dib loo dayactirayo ee gobolka Banaadir wada shaqaynta sidii maalin dhawtaan dhahay ee kala dhaxaysa gobolka Banaadir ilaa heer degmo iyo dadka ku nool gobolka Banaadir ee Muqdishaawiyiinta ah ee nagala qayb qaata runtii inaan bilicdan soo celino marka insha Allah waa sii wadi doonaa waxaan rajaynaynaa muddooyinka soo socda dhawaan wadadan ku dhamaato horumarkaana waa sii wadana in bil walba aan ku dadaalno intii suuragal ah ee karaankeena ah wadooyinka istaraatiijiga ah ee u baahan dib loo soo celiyo duqa magaalada muqdisho mudane taabid ayaa la dardaarmay bulshada iyo hay'adaha ammaanka waddo marka la dhisay marka dib loo dayactiro dadka ayaga iska leh dadka maadaama iyaga iska leeyihiin waxaana ay tahay adeegii dadka lagu celinayay canshuurtii la qaada dadka la dareensiyo wixii ayaga ay bixiyaan in dib loogu dayactirayo marka wax aad bixisay oo lagugu soo celiyay lagugu dayactiray waajibka ugu horeeya ee ku saaran waa inaad ilaalisaa ama aad nala ilaalisaa oo guud ahaan u wada ilaalinaa hay'adaha amniga ayaga sidoo kale hay'adaha amniga waxa halkan ugu dirayaa hay'adaha amniga idinkoo aad iyo aad u mahadsan amnigana ku dadaalaysaan bilicda magaalada waxa kamid ah wadooyinka aanan jaqafyo la dhax dhigin ama aan dhagaxyo la dhax dhigin ayadoo wadada la dhiso qurux badan haddii amniga la ilaalinayo si qurux badan amniga iyo waxyaabaha loogu talagalay ee joogsiga ama tabeelooyinka loogu talagalay in lagu diyaariyo oo aan wadada la iska dhax dhigin waxyaaba bilicda baabi'inaya waa wadadii labaad oo muddo 4 maalin gudahooda dhagax dhigo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed iyadoo maamulka gobolka uu sheegay in uu horumarin doono adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo bilicda caasimadda Nuur Saciid Taaliil raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho dhinaca kalena maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta xariga ka jiray iskuulka Macalin Jaamac oo muddo kadib dib loo howlgelinayo wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa warbixinta warkan inoo haya kamira dhalinta balanqaadka in bulshada ku nool gobolka Banaadir ay helaan waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aan ah ayaa maamulka gobolka Banaadir oo dhawaan la wareegay iskuulka hoose dhexe sare Macalin Jaamac ee degmada Xamarweyne ayaa dib u howlgeliyay si wax loogu baro dadka aan awoodin inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah waxaana maanta xarig ka jaray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha degmada Xamarweyne Umar Shariif Maaye oo gooreen madasha ka hadlayay ayaa sheegay in dadka reer Xamarweyne ay diyaar u yihiin inay ka faa'iideystaan inay wax bartaan baahi xoog badan ay u qabtay iskuul ma uusan u furmeen iskuulada waxay dhiganayeen private ah oo lacag ah laakiin maanta fursadda ay heleen waxay tahay inay iskuul lacag la'aan helaan taasi ay maanta maalmahan guuxa degmada Xamarweyne oo aad u dheeraa guuxaas aad iyo aad waxaan idinkaga rajayn doonaa iskuulada kale ee burbursan ama iskuulada kale ee xiran ee degmada inaad nala furi doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo ka hadlayay munaasabadda xariga looga jarayay iskuulka Macalin Jaamac ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii bulshada u heli lahaayeen waxbarasho ku filan waxaan maanta ay noo tahay maalin weyn oo ah iskuulkii Macalin Jaamac in dib loo howlgeliyo
waliba lagu howlgelisay lacag la'aan ah oo u noqdo waxa la yiraahdo public school maarta dadweynaha u furan ay ka faa'iideysan karaan dadweynaha degan ama ardayda degan Xamarweyne iyo xaafadaha ku xeeran intii soo gaari karta waana barnaamijka la rabo inay maartay wasaaradda waxbarashada hormariso ayagoo maartay la kaashanaysa gobolka Banaadir iskuulada gobolka Banaadir dib loo howlgeliyo kan waa bilow waxaana xigi doona iskuulo kale insha Allah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir dhinaca arrimaha bulshada Cabdullaahi Cilmi Xaaji Ereg ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu mahad celinayo cid walba oo ka qayb qaadanayso in bulshada ku nool gobolka Banaadir ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah iskuul macallin jaamac waa iskuul macno weyn u leh dadka muqdishaawiinta ah waxyaabihii aan hiigsanaynay waxyaabihii ugu horeeyay waxay ahaayeen in ay helaan shacabka muqdishaawiinta ah waxbarasho lacag la'aan ah inay maanta noo bilaabato waxay noo tahay farxad weyn Cabdullaahi Axmed